sideed qodob oo uu ninku ku kasban karo gabadha aqliga badan ee Fariida ah. Gabadha maskaxda badani waa ta awood u yeelata in ay dareenka iyo xiisaha ninka ay ku soo jeediso wax kasta oo ay qabanayso. Waxa ay ku guulaysataa in ay si joogto ah isaga dhigto cidda qura ee uu ninkeedu ku fikiro dareenkiisa oo dhamina daneeyo. Laakiin dhibta ay gabadha garaadka badani ee Fariida ahi leedahay waa iyada oo inta badan isku mashquulisa bal in ninkeedu la mustawa yahay ama la mid yahay dhinaca jacaylka iyo danaynta iyo xataa dhinaca maskaxda iyo fariidnimada, iyada oo tijaabinaysa in uu ka aqli hooseeyo ama uu ka aqli badan yahay. Waxa aanay tan kala baxdaa qaabkiisa sheeko. Haddii aad in uun ku fikirayso in aad guursato gabadh maskax badan adiga oo dareenkeeda iyo caqligeedaba kasbanaya, waxa talo lagugu siinayaa in aad qaaddo talooyinkan soo socda. Waxa aad arki doontaa adiga oo si rasmi ah u degay qalbiga gabadha Fariida ah. Qodobadaasna waxaa ka mid ah: ha khiyaameyn gabadha Fariida ah. Marka aad la joogto, ha isku dayin in aad isku muujiso nin garaad badan, aqoon dheer leh. Ha sheegan in aad ka jawaabi karto wax aanad aqoon ahaan garanayn, adiga oo gabadha iska dhaadhicinaya. Haddii ay tani dhacdo, waxa hubaal ah in ay si fudud kuu fahmi doonto waxa aad tahay iyo istusnimadaadaba. Haddii gabadha Fariida ahi aragto ninka oo doonaya in uu iska dhigo inuu la mustawa yahay ama la tartamaya ama ka garaad sarreeya, waxa ay markaaba gashaa xaalad colaadeed iyo in ay difaacato waxa ay aragto in ay dheer tahay ninka ee aqoon ah, garaad ah ama waayo aragnimo ah, iyadoo waxaasoo dhanna u samaynaysa in aad liiddo ama aad isku daydo in aad khiyaanto. Waxaana markasta ku jirta cabsi ah inaad khiyaamayso ama been aad u sheegayso. Iska jir ereyada nafta kaga taga raadka xun. Waxa talo lagugu siinayaa in aanad gabadha garaadka badan isaga dhigin in aad la siman tahay ama ka sarreyso, laakiin iska jir dhanka kalena waxa lagugula talinayaa in aanad iska dhigin doqon wax magarato ah. Adiga oo og in aad gabadha ka garaad hooseyso ama ka aqoon liidato, haddana iska jir in aad u isticmaasho ereyada ah aad ayaad u garaad badan tahay. Fariidnimadaada ayay qancisay. Waxa halis ah marka ay gabadhu kuu soo jeediso talo ama aragti in aad in badan ku celceliso ereyadan. Weligayba taasi maskaxdayda kuma soo dhicin, xataa haddii ay run kaa tahay ereyadani. Inkasta oo marka aad eegto isticmaalka duleed ay aad u fiican yihiin, haddana waxaa jira in ay saamayn taban kaga tagto nafta. Waxa ay khubarada cilmi nafsigu xusaan in haddii ninku in badan gabadha ku celceliyo ammaanta maskaxdeeda iyo fariidnimadeeda, in ay markaaba gabadhu qaadato dareenka ah in aanu ninkani abid soo baran qof iyada ka garaad badan oo uusan waayo aragnimo badanna u lahayn dumarka. Taasina waxa ay iyada dib ugu noqotaa niyad jab iyo in ay guursatay qof aad uga aqli hooseeya, uga aqoon hooseeya. Inta badan ninkaasna wuxuu noqdaa dhinacay doonta ay u wadwadato oo rumuud ay ku wado. Noqo faduuli. Khubarada cilmi nafsigu waxa ay sheegeen in gabadha Fariida ahi mar walba qabto dareen ah oo u sheegaya in ninku uu dhaqan ahaan, fikir ahaan iyo aqoon ahaanba yahay faduuli. Sidaa awgeed, talada la siinayo ninka jecel in uu hanto gabadha Fariida ahi waa in uu muujisto faduulnimo. Faduulnimo macnaheedu markaan leenahay waxaan ka wadnaa faduulnimo waxaa loola jeedaa inaad markasta gabadha u muujiso inaad ka karti badan tahay, ka aqli badan tahay, ka waayo aragnimo badan tahay. Naftaada ku beer xiiso badan oo aad ku muujinayso sida aad u jeceshahay barashada waxyaabo badan oo cusub. Uga sheekee khibradahaaga farsamo iyo waayo aragnimadaada iyo waxa aad jeceshahay in aad mustaqbalka soo kordhiso. Marka aad la hadlayso gabadha Fariida ah ama xataa gabadh kale oo kasta, waxaa lagugula talinayaa in aad ka gudubto sheekooyinka iyo su'aalaha soo jireenka ah. Waxa aad ku dadaashaa in aad sheekada ka dhigto mid heerkeedu sarreeyo oo lagaga dhadhansan karo in qofka hadalkan ku hadlayay uu yahay qof garaad badan. Tusaale ahaan, haddii gabadh aad u aragto mid aqli iyo fariidnimo badan oo aad la kulanto, weydii sababta ay ku dooratay mihnadeeda ama aqoonteeda. Tusaale ahaan, maxaad ku dooratay barashada sharciga ama maxaad ku xiisaysay in aad siyaasadda dhex gasho? Waxa aad ka waraysataa raadka ay qoyskooda ku yeelatay aqoonteedu ama aragtideedu. Waxa hubaal ah in marka aad gabadha weydiiso su'aalo ka duwan kuwa caadiga ah ee ragga kale weydiiyaan, ay isla markaaba bilaabayso in ay ku xiisayso. Isku day in aad ka sheekayso sheekooyin gabadha u muujiya in ay kaa mustawa hooseyso garaad ahaan iyo waayo aragnimo ahaan, in ay kaa garaad hooseyso. Xataa haddii aad casho geyso, isku day inaad siiso cunto aanad hore u aqoonin. Waxa aad ogaataa in guud ahaanba dadka aqoonta leh iyo dadka garaadka badani ay yihiin dad jecel in ay mar walba tijaabiyaan wax cusub.